هذا وديارة قطبية كتسر إذا ما لقرك جمهورية الصومالي الآن مناسبات السيدية طبعا كما يوجد مدر ملحوين مساعدوه ورما هذا هو آخر منه عدد حول بزوج سنة وكذي ورمارو إيه كمان جفت حاجة كورش عدد واحد ما تسوي عدد فرسان لو رشي حاجة نوجي يا سلام النادي واسع ما ورشنا عدد بس ورشنا حاجة ما شفتنا واي وصل قابل هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي ومهده بشر رمضان بركيسان إلهي خير كيف هاي نسيو دم الله في مغفرة هاي نسيو وحي إسلام نقول يدسنا الله نحرستو انتنا الله نقول نحرستو إلهي وحنو كبرينا آفويك عذر كجراء أدوك ساميي إنك لبتوين وهي إنه إلهي مسيبة سيدك دول قاضه إن إلهي عذرك وصيع أيضا يرضو شاقا سفر نوغا سفر ما هو آفئ إن إلهي سفر نوغا إلهي نوفضي وحن وياك بريانا خير وطن إلهي وحن كم من قال براي وطن دعا كدب والله الله يرى ما أنت وبشي مي وما أنت قرن الله وحن حنبر يودريا dhammaan shacbiga Somaliland meel uu joogaba guud iyo dibadba waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan golayaasha qaranka ee Somaliland axsaabta qaranka ciidamada qalabka sida ee kala duwan dhammaantood meel ay joogaanba waxgaradka culimada baayac mushtarka rag iyo dumarba dadweynaha Somaliland iyo madax raqameedkooda dhammaantood waxaan ilaahay uga baryaa caafimaad qab iyo inaynu sanad guurada teeda kale ku gaadhno bashbash iyo barwaaqo 18 May waa maalintii aynu xaqiijinay qarannimada Somaliland waa maalintii inagoo isku duuban oo aan cidna inaga maqnayn oo gacmaha haysanna ku heshiinay inaynu qaranka dhisno shirkii magaalada Burco 1991 go-aankii ka soo baxay in aynu xorriyadeennii kala soo noqono aynu kala baxnay qarannimadeennii midowgii aynu ku hongownay ee 1960 June iyo July waxaynu iyo talada inaga ka soo goday dadkeena ee aan dibaddeena kaga iman heerka dowladnimada aynu ku gaadhay walaalayaal markii lagu go'aamiyay Burco qarannimada Somaliland 1991 May waxa lagu ansixiyay afti dadweyne markii dastuurka la ansixinayay in dastuurka iyo qarannimada madaxa bannaan ay tahay laba taabtaan 2001 bishii May buraanka iyo sawaxanka siyaasadeed ee ku saabsan wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee laga wado warbaahinta waxay muujinayaan bisay la'aan siyaasadeed iyo waay aragnimo la'aan iyo garasho gaabnida dadka maanta maamula xamar ee ku hadaaqa maalin walba soo dhajiyo boor ah Somaliland waa gobol ka mid ah Soomaaliya aad iyo aad bay wax looga yaabo tahay maan gaabnimada
dadka 30 sano og inaynu laba dawladood oo midowga gaarkeeda wax u dhisatay yahay haddana maalin walba kusoo sawira calan oo odhanaya Hargeysa iyo Somaliland iyo Burcaan wax u dirayna iyo Boorame taa waa ka hadli doonaa waa hadalladii hawsheeda waxaan saleeyahay taasi ma aha mid arrin lagu geli karo ee waa bulaasu iyo war suuqa socda xarunkan adduunka saameeyey ee COVID-19 dalkeena aad buu u fidaya waana caadadiisa marka hore loo dareemo inta aanu fidin marka uu dadka gaara dadka u horeeya xarunka u soo dhacaa boorinta ayuu si xoog u dawka haddana hoos u dhacaa marka waxaad moodaa maanta inuu xoog halkii ugu sarreysay marayo boqol iyo dheeraad baa laga helay weliba waxaan weli raadinaynaa inaynu helo ay tahay mashiinada lagu baaro xarunkan oo aynu helno magaalooyinka waaweyn Boorame Burco Berbera Ergaabo Laascaanood ugu yaraan hawshoodii waa lagu jiraa kala go-a diyaaradaha iyo haddii la yidhahdo adduunyada wixii la soonay aan la isu gudbayn awgeed ayay adag tahay markii la dalbado waa inuu raago waxaan u mahadnaqaynaa oo mahadnaq ballaaran sheedinayaa guddida loo xil saaray hawshaa ka hortagga fayraska ee maamulkeeda oo shaqo wacan qabtay ciidamadii qalabka siday oo dhan meel joogaanba si ay cadowna uga diyaar garoobaan dalka haddii dhibaato sii balaartana wax uga qabtaan waxaa loo sameeyey goobo lagu kala tilmeeyay dhammaan socodkooda kasoo galaysa xuduudada muddo 14 cishaha meel kasta ka soo galeen waxaa hoos loo dhimay qiimaha cashuureed ee bisha Ramadaan ee raashinka daruuriga ah 20%. dowladdu waxay abuurtay sanduuqa la dagaalanka COVID-19 oo ay ka codsatay dadkuna inuu soo taageero alxamdulillah maanta lacagta la hubay kusoo gaadhay waa ilaa 7 milyan iyo dheeraad sad dowladdu 1 milyan bay ku shubtay inta kale dadweynaha isugu geeyay waliba shirkadaha waaweyn maalqabeennada Soomaaliland dowladdu waxay abuurtay sanduuq la yiraahdo miskiin kalkaal oo lagu ururinayo qaaraan lagu taakuleeyo dadkeena baahan ee jilicsan ee qaadamada gahayd ee suuqa laga xidhay kaana dowladdu qaaraankii horreeyay 1 milyan buu ahaa ilaa 2 milyan oo kale wax soo soo maanta dadweynaha waana maqlayseen guddida ka hortagga oo daraata 650 qoys u qaybinaysay raashin oo ugu badan dadka ay dhibaatadu gaaraysay dowladdu waxay fartay sanduuqa lagu talagalay in lagu taakuleeyo ganacsada yaryar ee uu saameeyay xarunkan ay COVID-19 oo qorshaheedii iyada lagu jiro waxa kale oo xukuumaddu ka soo iibisay beeraleyda labadii sano ee roobka wanaagsan daay wixii ay beereen ee kayd hayeen in laga soo iibiyo ay dowladdu ka soo iibiso oo lagu daro gargaar dadka la siinayo oo aan laga sugin qabadi laga keenay meel aynaan garanayn waqtiga imanayso wax kasta oo la dadaalay walaa xarunku sii fiday
maalin walbana waxaynu arkaynaa hebel oo dhintay waana aafo adduunka o dhan maraysa waxaynu u baahan inaynu sii xojino la dagaalankiisa oo ah inaynu qaadano awaamirta dhakhtarada waxaynu u baahannahay inaynu ismaqalno waxaynu u baahannahay inaynu ku dadaalno inaynu kala fogaano intii suurtagala maanta ku dheeraan maayo hawlaha xukuumaddu sanadkan ay soo qabatay waayo bishii dhowito warigii february ka akhriyey gobolada gole ee wixii la qabtay iyo qorshe u sheegay si guud mara haddaan taataabto amniga qaranka difaaca qaranka iyo nabadgelyada dalku waa saldhigga dowlad kasta uu jirta caalamka dowlad waliba waxay haybad iyo tixgelin leedahay awoodooda ciidan iyo cududooda dhaqaale ilaahay mahadii 30 sannadood oo la yidhahdo lama ictiraafin oo nuclear isku tashanay 30 kaba si nabadgelye iyo aamina ayaan u soconaa 30 sana cadowga Soomaaliland waa badnaa siriya caabo u lahaa bareed iyo warwareeg iyo dhuumasho iyo sorxgal buu isku daayay ilaahay mahadii shacabkoo isku duuban iyo ciidamada qalabka sida kala duwan iyo dadkeena qarnimada ilaashanaya iyo madaxdooda oo boqolkiiba u soo jeeda qarnimada ilaalinteeda waxaynu ku gaadhay 30 sano oo nabadgelyo gudaheena ah cadowgeeda inay soo weerareen ay warigii fooda soo gelin dalkeeda waxa la xoojiyay tayeynta ciidamada dhinaca qalabka tababarka moralka iyo cududooda oo markii ugu horeysay ee tababar leyli sarkaal dalkan gudihiisa lagu qabto oo ay ka soo baxayaan saraakiil ciidan oo ay ku jiraan hablo waxa ciidamada amniga guduhu waxay hoos u dhigeen boqolkiiba 9 dembiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn iyo dalka guud ahaan waxa iskaashi iyo amni laga sameeyey dalalka dariska ah si loo xakameeyo dembiyada xuduudaha ka gudba waxa la dhammaystiray isbitaalka ciidamada qalabka sida oo furan hadda la bilaabay oo adeeg hufan oo caafimaadkii doona ciidamada cadowga jamhuuriyadda Soomaaliya waa badan yahay hase yeeshee waxa uu muusgooyay shacbigiisa iyo ciidamadiisa isku duuban dhaqaalaha dalka hore uga hadlay waa badan yahay marka soo koobo dhaqaalaha dalku boqolkiiba 15 sanadkan kordhaabay ahayd waxa ilaa 10 waxa hoos u dhac badan ka imanaya cudurkan COVID-19 qorshihii dib miisaanada ugu sameyn lahaa ku talagalana waa lagu jiraa inta uu qaadanaya garanayno heerka uu gaaro garanayno waxay nagu qasaba inuu dib u eegno miisaaniyadeena iyo qorshayaasheena priority-goodii halkii koobaad markii hore ay noo ahaayeen 22 mashruuc oo ku kacay lacag ku dhow 20 milyan oo xibro hore la sii daayay ahay way hakadeen way wax loo leexday dhinaca cudurkan COVID-19 walaalayaal waxaanu guula gaadhnay waxaa dalka soo socday haddana cid waliba dhaliisheeda waa leedahay dhaliisha Soomaaliland ugu weyn ee dhaqaalaheena iyo nabadgelyadeena waa dhigtay waxa weeye isku dhaca deegaamaysan ee beeraha weedega deegaamada dhulkeenu waa laga badan yahay dadkeenu wuu yahay dhulkeenu wuu yahay haddana waxa dhacda maalin walba beera isugu dhaca dhul la isku qabsado oo ah beer iyo barkad iyo wax lamid waxa naga dhintay boqolaal qof laba sano u dambeeyay waxa ku burburay hanti badan dad badan baa ku barakacay haddaa dagaalada raadiso oo si walba u xadhood baadhana waxaan sagaar ka biirsan baan ku dadka ku leeyahay oo dadka ku barakacay oo dhaqaaleena ku burburin waxyaalaha dhaqaaleena culayska badan ku haya waxa kamid ah isku dhaca beeraha iyo hawlgaladooda labadii sanadood u dambeeyay waxa la yaab leh inaga oo dal soo koraya oo horumar doonayo waxa inaga baxay dagaal beelado loo gurmanayo ee kolba barkad iyo beer iyo waxaan ka weyn la isku diraayo 9 milyan oo dollar 9 milyan oo dollar baa inaga baxay dhexdhexaadin iyo u gurmad iyo kala qabashada beeraha laba sano u dambeeyay imse iskuul bay noo dhisnahay caafimaad baynu u baahan biyo u baahan wax aliyo waxa la isku diray garamis markuu dadku la laayo ee la barakaco ee la burbura la oraya walaalayaal ka heshiin oo xaladala ka noqon maxaa isku dilay maxay waxaan soo jeedinayaa dhammaan waxgaradka media mutacalimiin sheekh shariif in dadka laga waanay dhulku waa ina deeqaayay inaan maalin walba ku dhammaan oo inaan isku gurman waxaan sagaar ka birsan gacan baa la isku diray barkada u leexday waxaan u gudbayaa kaabayaasha dhaqaalaha waa qorshihu aynu hore u soconay
aynu ku soconay oo wax laga bedeli doono. sanadkan waxaa u badnaa in ceelal badan la qodo, in jidadka dayactirkooda la badiyo, laba taabo waddadii Burco iyo Ceero Gaabo iyo Dawaaseedii, tan kooridoorka oo ay dhisayeen qolada Carabta iyo qolada Ingiriiska oo iyagu naga caawiyay inta leexashada ah iyagana maynaan taaban. laakiin qorshayaashii waddooyinka wax badan waxa hakin doona ama wax ka bedeli doona xanuunkan COVID-19. waxbarashada iyo caafimaadka oo labada ugu muhiimsan, labadaba waxaa ku dhacay culays. miisaaniyadoodii horumarineed ee macalin lahayd ee dugsi dhis lahayd waxaa ku dhacday labadaba culays fara badan oo keenay cudurkan. dhammaan xooggeennii arrimaha bulshadu waxay u leexanayaan xooggoodii in lagu caawiyo wasaaradda caafimaadka oo ku jirta dagaal alcaalamiintu baaxadtu leeyahay. iskuuladii waa la xidhay, cudurkanaa xidhay, macallimiin badan oo private ahaa oo shaqada mushaarkooda ku ekaa inay ardayda waxa laga qaado ku socdaan waa xidhmay. waa cuse kaloo soo kordhay oo iyadana dib u eegid miisaaniyada ay lagu jirayay si loo xalin lahaa. garsoorka waxaasoo dhibaatooyin jireen. garsoorkeenna ilaahay mahadi labadii sanadoo u dambeeyey markii la tiriyey kiisaskii soo galay 85% ayay maxkamaddu go'aan ka gaadhay. welina cabasho waa jirta, maxkamadu way dheer yihiin. maxkamadaha dheer waxa ugu wacan dadka oo marka la weydiinayo marka dacwadda laga helay iyagu soo qaldaay oo korba marka go-aan la gaaraba wax cusub ka dooranaya, gaar ahaan kuwa dhaxalka oo kale oo dhammaantood ku adkaaday. ma aha inta badan dhaliishu ka timaada garsoorayaasha. garsoor waxaansan karaa waa bini aadmi, laakiin dadaal qeyr caadi muujiyeen. waxaa la sameeyey maxkamadda wareegta oo fudaydisay 60% dembiyadii laga soo qaadi jiray gobolada iyo degmooyinka ee la keeni jiray caasimadda. maxkamadda ayaa 24 degmo ayay maxkamad ka furayeen. gobollada maxkamadda wareegtaana degmo kasta way tagtaa iyadoo awoodda ilaa iyo maxkamadda gobol ah marada kuwa racfaanka xataa raacaan. dowlad ahaan 2 sano u dambeeyey waxaa kor loo qaaday dakhliga ama mushaharka xaakimiinta iyo shaqaalahooda 50%. qorshahana waynu sii karnaa, waayo qofka xaakimka ah wuxuu bahaya daryeel badan, tixgelin, sharaf iyo amnigiisaba in la xoojiyo. taasaynu waddada helnaa insha allah oo aynu gaari doono. waxa hoos u dhac ballaadhan ku yimid dacwadihii dhulka sababtoo ah dalka oo dhibaatadiisii arkay iyo maxkamadaha oo inta badan lagu xaliyo si suluxa iyagoo iska kaashanayaan dadweynaha, ciidamada amniga, maxkamadaha iyo culimada. waxaanu rajeynayaa dhibaatada dhulka hoos u sii dhacdo oo aynu hoos u dejinno. waxaanu sheegnay howlaha ay qabtaan garsoorku waxay kor u qaadeen dakhligii ay soo xeray jireen ilaa 5%. waayo markay dacwaday qaadaan baa waxaa la socda kharashka dacwada. beesha caalamka iyo dalalka ay dariska nahay, Somaliland waxay sii xoojinaysaa xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dowladda ay jaarka yihiin iyo kuwa kale ee caalamka oo dhan. xiriirkaasi waxa uu mar kasta ku salaysan yahay wax wada qabsi, nabad, jaar wanaag, isqadarin iyo ka faa'iidaysiga fursadaha dhaqaale iyo ganacsi ee la wadaagi karo. wadamada beesha caalamka waxaanu ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go-aanka iyo ayaka tagshiga shacbiga Somaliland ee qaraarkiisa ay cod, afti iyo talo iyo dowlad dhisba ku muujiyeen. gargaarka caalamiga ah waxaanu soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamka ku caawinayso Somaliland, balse marna aqbali mayno gargaar, deeq, qaadhaan, dhaqaale iyo hawl soo marta Muqdisho iyo Soomaaliya. waa ku celinaya cid kastoo nala soo xidhiidhaysa ama taageero ama talo ama dhaqaale. waxaanu u sheegaynaa Soomaaliya inaanu 60kii midownay 30 sano dagaal iyo rafaad ku wada jiray, 30 sano kala maqnayn, waxba aaniga dhaxan meel ka dhac ay tahay aanan qaban karin in la yiraahdo hawshaas xamar ku xidho idinkii xamar ka heshiiya meel kama heshiin. xamar cadow waa aragnaa, waa dowladda qura qaranimada Soomaaliland diidan ee ka baraysan. ninka qarannimada iyo diidan col baan saa darteed hay-adaha sibcada qurba ka dhaxaysa dowladaha waxaan u sheegaynaa annaga Somaliland oo dal gaar u taagan oo danta dhisanahay cidina xisaaban oo wanaagsan tahay, laakiin ma qaadan karno dafna oo aragnaa
xamar baa waxay ka dhexeeyaala ka heshiiyey oo hawlada Soomaaliya iyo Somaliland iyagoo go-aanka shacbiga jamhuuriyadda Somaliland uu yahay madax banaanideedu muqadas lama taabtaan ah sida dastuurku caddaynayo haddana casrigan aynu maanta joogno ilbaaxnimada adduunka iyo caqliga fayooba waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wada hadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada in indhaha laga lariyo ma aha haddii la doonayo in la wada hadlo ama cidina dhex gasho waxa kowka oo shardiya horta in la aqoonsay inay yihiin laba dal oo kala waxbana wada hadlayo ma waxba ka dhegeysan mayno talan la geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda Soomaali way dal waxa weeyaan dagaal ka dhex taagan yahay Soomaaliya dagaal ka dhex taagan yahay la dhex galo Soomaaliya Soomaaliya laba qaran oo qofkii ku dhex dhexaadinaya diyaar baan walaalo xamar nimanka xamar joogay aan isku Soomaaliyana walaalahay hadday taa indhahoodu arkayaan oo waan wada hadlaynaa intay sareeyeen gobolada waqooyiga iyo magaalo Hiblaayo Saayirna ee kolba calan diyaarad yar oo gaar ah soo sawiraya heshiinna wada hadlaynaa waxana abuuraysa colaad hor leh iyo caro hor soddon sano ee Somaliland iyo Soomaaliya ku mideysnaayeen dawladdii Somali Republic waxay dawladda 1960 ilaa 1990 oo salaam baa aan garanayo oo aad waxa uu qori jiray nation oo ku saxiix jiray mustaqbalale annagu ardayda akhri jiray oo uu og yahay xogaan yahay wixii ka jiray iyo tii ka dambeysay ee 1960 ee la baxday Somali Democratic Republic ee 1990 isku dar labada soddonkaas sano waxaa soddon sano inaga dhexdeena dagaal ka socday oo waxa hoos loo diro iyo waxa bareer loo diro iyo wax mudaharaad ku dhinta aynu ahayn waxa ka markaa soddonka aynu sida ku jira laba dagaal baynu galay dariska labada Soomaaliland buu dagaalka culayskiisa ku dhacay riiqday dagaalkii 1964 Soomaaliland culayska ku dhacay kuma dhicin xamar iyo agteeda culayska weynaa ee dhimashada ee xoolo miisaanada dhaqaale ee cusbitaalka Hargeysa joogay wax alliya waxa dumarka iran iyo sodo iyo ayay dhammaantood cusbitaalka Hargeysa ay taagnaan dhaawac iyo culays marka meeridiisa iyo inta uu karintoodii daawanteeda footar ay ku shaqeynayeen iyo kabruco iyo kaboorami dawar kuma dhicin wuxuu daawaday wax yar bay ka hay inay gudaha dagaal bay ugu hayeen dawladda kala dambeeyay iyo colaad kabeedka iyo taraxmada waxaynu ka baxnay 1999 oo qaar ka dhisan soddon sano kale oo joogay soddon sano wada kala maqnay caqliga habeen walba inamada reer xamar joogay ay TV-ga ku soo dhigayaan bashaqada ka fureeyay Hargeysa heer baan u diray ruux abad harnay iyo xumaan la bilaabay haddii wax caqliga halka joogo cid kasta oo aan misaanadooda hadalka diyaar baan u iyagana hadday taa aaminsan yihiin oo hadlayna marka arrintu sidaa tahay dadku markay isqabtaan marka hore waxay ku heshiiyeen yaa wada hadlaya taa waa sheegay maxaa ku xiga ajandaha lagu hadlaya laga heshiiya ma aqbali karo go-aan ah oo inamada xababjooga ku hadlaan wixii aan kala tagahay kala go-ahaynba aynu ka wada hadal si cadoo dheer baan idinku sheegaya kala go- mooye wax kale ku wada hadli mayno waynu kala goro waynu kala tagnay ma wadaadinaa laba doodarisa ma ahaana haddii kale waxaa wadaa waa heli doontaa arrinta labaad loo kala bixi karaa waxa weeye maxkamad caalamiya oo arrinteenu aanu soo subaysano oo aanu carabka waxaan kusoo koobayaa waxaan ka baryayaa maanta oo cudurkan inaad dul saaran inuu inaga qaado inuu inoo sahlo inuu inoo khafiifiyo masiiladiisa iyo dhibaatadiisa waxaan ku baaqayaa 8 May Somaliland inaan loo baqanayn hadday ciidan tahay iyo hadday dhaqaale tahay inaan iswadi karno xanuun kale inoo muujiyo intaan isku filaan waxaa leeyahay hay-aduhu loolanaya waxaa lasoo marinayaa Brussels waxaa lasoo marinayaa Nairobi waxaa la keenayaa kan afarteena maalqabeen iyo dawladda iyo shicibkeena isku tashada oo qabtay oo maanta aynu ku soconnaa hadday si adkaasna wadi doonta kalsoonidaas aan ku qabaynay Somaliland si wadiso waxaan dadka ugu bushaaraynayaa in ay dhowdahay guush oo huweenaan yeerayn qarannimadeena iyo xoreynteena iyo madaxbannadeena waa dhowdahay
ha loo dhabar adaygo in ka badan baynu ka soo gudubnay meelan ka horreynna ma joogno inamada xaar joogana fariintaasaan dirayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu والله كلنا والله عدد بكتير والله عدد كسر سيرته أروح أقولها ها أروح عدد كذا أروح كذا تي عسكري مايا اسكا فريسان waxaan qolaa ciidamada bilaasinayaa بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدين والدين waxayna halkan ka xaadirinayna oo taliyo wakiishay inaan halkan ka xaadiriyo 12kii sargaal ee ugu horeeyay ee ciidanka qaranka Soomaaliland ee loo aqoonsado kuwaasoo 3 ka mid ay maqan yihiin say u qaadaynaa anagu waxaa fadhiya goobta 9 sargaal waan xaadirinayaa warqadda sidaa u kala horreyso waan xaadirinayaa gaashaanla sare Ismaaciil Faarax Cawaale Doolaaq سؤالك ما توكس صباح كيف سوري يا gaashaanla sare Ismaaciil Faarax Cawaale Doolaaq اوكي سوري دور قبل زي فرصة صلى الله عليه شوف mid kale lagu siinay ما قولي media حاجة شو اوكي هو قبصة حقنا ولا الضي يا قدامي تفضل gaardu ku soco حكومة gaashaanla sare Axmed Hurre Haari هذا هري هري ما أنا باركي هري هري markii leeska la qoray hoggaanka hawlgelinta mu ahayn imika hoggaanka hawlgelinta ciidanka qaranka weyn هري هري نكو عيوه كم قوة أهلا وسهلا salaad sawirka تفضل gaashaanla sare Mahad Faarax Cilmi oo loo yaqaan Mahad Cambaashe welcome اسكورها ما حضي كان قاعد gaashaanla sare Cabdilaahi Suufi Axmed abaanduulaha aaga bariga gaashaanla sare Yuusuf Iimaan Diiriye gaashaanla dhexe Kayd Cismaan Maxamed soo diyaar garow gaashaanla dhexe Kayd Cismaan Maxamed hal tallaabo horay soco sawirka gaashaanla dhexe Ibraahim Cali Sabir
gaashaanle dhexe maxamed cabdilaahi cartan rujiye soo jeediis gaashaanle dhexe cabdilaahi maxamed axmed oo dhaga weyne ku magac dheer background buu noqonaya saddex baa hadhay maqan waa loo qaadaya waxaa maqan oon goobta fadhiin shaqo awgeed looga maarmi waayey sarreeye guuto cali bare xuseen jenaraalka taliyaha aagga bariga gaashaanle sare faysal cabdi bootaan taliyaha qaybta 12aad gaashaanle sare cabdilaahi ibraahim xasan oo ah taliyaha guutooyinka madaxa bannaan oo fadhigiisu yahay iminka yube saddexdaana waxaa u qaadaya taliyaha ciidanka qaranka sidii ballantu ahayd بردان يدي اوكي اوكي يا ندي hawshoodii qorshahoodii iyo nabadii soo sameeyay biladaha in la sameeyaa waqti badan bay qaataa inagu ma samayno dibadahan u diraa markaa iyagana booliiska ciidamada kale kala duwan qolo walba biladaha ay hawshoodu leedahay waa u soo socda ma ay qodan ciidamada qaranka una hoog loo horde soo maaha adigu dee taliya kolka hore qoladana ahayd imikana xaggana tahay marka la geliyo hal sawir baa la geliyo ii jooga xagga dambe ii jooga taliya gal sawirka xagga dambe ii jooga marka sawir wada galeynaa ii jooga xagga dambe ayay kala durugno sawirkii aan bilaabaynaa eeg doolaal iyo isugu idinku dabarbaad waxay la galaysaa idinku ma jirtaan waaya idinku ku jiraan sawirkii waan gelaynaa sawirkii waan gelaynaa iska daa iska daa
mudana madaxweyne waxa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda 18 May awgeed mudana madaxweyne ku soo dhawow